mudane marweyn kulligiin aad uma santiin sida wanaagsan ay soo dhaweyseen sida sharafta leh sida walaalnimada ku jirto waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta aan joogo magaaladii Kismaayo oo ah magaalo madaxda Jubbaland oo ku meel gaarka ah ما قياسي كرو سida ay tahay sidaan dareensanahay yani farxadda iyo reereenta waxaan u maleynayaa dadka inay kulligay wada garanayaan intaan garanayno waxa rabaa waxyaalna u sheegaani magacayga waa Sharmaake Maxamed Cabdi Xaaji Gandi waxaan ku dhashay Soomaaliya waxaan wax ku bartay Soomaaliya dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare heerkayga jaamacadan waxaan ku dhameeyay waqooyiga Mareykanka waxaan musharax u taagan madaxweynimada Jubbaland waxaan rajeynayaa in Ilaahay uu ii fududeeyo hadii uu khayr ku jiro waxaan ka soo shaqeeyay wadanka gudihiisa iyo wadanka dibadiisa labadaba aqoontayda waxaan leeyahay kalsooni buuxda oo aan aaminsanahay in aan dadkayga wax ugu qaban karo waxyaabaha uu qasbay in aan darajadan u soo istaago waxyaabaha ugu weyn waxa kamid ah in uu wax isbedel u yimaado isbedelkaas oo noqdo mid meesha hadda aan taaganahay ka socda waxaan rabnaa in deegaanka Jubbaland uu noqdo deegaan dadka oo dhan ay ka wada naafi ka helaan dadka reer Jubbaland oo dhan ayna kaga faa'iideystaan oo ayna kaga faa'iideystaan waxa kheyraadka yaala waxa aan qorshe iyo tiirar aan leeyahay tiirarka hor socodka oo deegaanka Jubbaland uu u baahan yahay sida waxbarashada caafimaadka kheyraadka badda iyo in dadka talada la siiyo wax walba oo la sameeynaa inay talada dadka ay noqoto talada dadka dhanka wada dhaxaysa oo ay noqon talada hal meel ka socota kaliya waxaan ku faraxsanahay in qorshayaasha aan wada hadeer ay noqon doonaan kuwa dhaxalgal ah kuwa dadka horumar gaarsiiya kuwa dadka isu keena aan kala fogeyn iyo kuwa ayaga walaaleeya marka inta naga dhimanna aan dhameystirno waxyaabaha ugu muhiimsan aniga waxa waaye aan xoog saari doono waxa kamid ah in dhulka deegaanka maqan la soo celiyo oo uu dhulku wada nabad noqdo inta banaan hadda oo gacanteena ka maqan in dibsi loogu soo celina xoog la saaro in waxbarashada xoog la geliyo in dumarka la empower gareeyo oo ay noqdaan awoodda qayb kamid ah awoodaha wadanka oo jira wadanka boqolkiiba 50 ilaa 60 dadka deesa ka badnaynba dhalinyaro loo baahan yahay dhalinyaro waay marka in dhalinyarada xoog la saaro sidii wax loogu qaban lahaa in wadanka Jubbaland annagoo dhan iyo Soomaali iyo waliba adduunku naga badan yahay hadii kheyraadkeeda ka faa'iideysano marka waxa aan diyaar u ahay inaan dhalinyarada la shaqeeyo inaan talada weyneeyo oo noqon talada qof uu iska qaato bulsho weynta dhan oo reer Jubbaland ay ka wada qayb galaan marka waxaan ugu baahanahay isbedelkaasi dhaqso ah not 4 sano 5 sano 6 sano soo socota hadda u baahanahay isbedel yimaado isbedelkaasna wuxuu ku imaan karaa anagoo kulliyan gacmaha isqabsana oo waxa aan haysano hadeer aan wanaagsano oo wax kale oo fiican ku darsano marka